waxaan kula wadaagayaa arrin philosophy ah. Horta macnaha oo kooban philosophy waa fahamka nolosha, dabeecadaha qofka bini'aadanka ah iyo labada qof sida ay isku fahmaan, iyo weliba sida aad naftaada u fahantid indhaynta nolosha iyo dabeecadaha bini'aadanka. arrintan kula wadaagi doono marka aad u fiirsatid waxyaabo badan ayaa maskaxdaada ka dhaadhici doono, indhuhuna way ku furmi doonaan. ma isweydiis horta sababta dadku ay isku furaan? inkastoo qadar ay jirto, haddana sababo badan baa jira. sababta koowaadna ay tahay dhaqaalaha, laakiin sababo kale waxaa jira naftaada marka aad fahantid qaabkaad u nooshahay ama dadka qaabka u nool yihiin ama u wada nool yihiin ay ku cadaanayso sababta ka dambeysa in laba qof ay isfurto. waxaan ku hormarayaa haweenka. maxaa sababa haweenka inay soo istaagaan in la furo? tusaale ahaan laba ayaan u qaybinayaa. mid waxay ka fikirtaa xoogga waxa ay saartaa waxbarashadeeda oo waxa ay ku gaartaa waxbarashada 30 iyadoo xataa 3 sano ama 4 sano ama 5 sano marka ay waxbarashada dhammaysato ay shaqaynayso. qofku markii maskaxdiisa u tababaran yahay inuu shaqeeyo ama uu wax u barto, 30 marka uu gaaro waxaa imaanaysa in markaasi lagu cadaadiyo ruwa weynaatay ma ilmo dhashi. maskaxdeeda qofkaas waxaa ka dhaadhacaya xiise ilmo dhalitaan ah. isla markii way guursanaysaa, xiisaha sidiisuna muddo kooban ayuu joogaa. guriga waxay u gashay ilmo. markii ay guursato, ilmihii ay yimaadaan, ilmuhu ay wax yar soo koraan, waxa ay ku laabanaysaa nolosheedii hore ee ahayd waxbarasho ama horumar ama dhaqaale ama shaqo. guriga way ka cararaysaa. taasina waxay sababaysaa iyada iyo odageeda inay isfahmi waayaan, waayo nolosheeda xilliga la rabay inay maskaxdeeda ka fikirto wax danta u ah mustaqbalkeeda muhiimka ah, waxa ay ku soo qaadatay inay hal wax kaliya xoogga saarto. qofka bini'aadanka wax uu baran karaa, laakiin xoogga hadduu u saaro waxbarashada kaliya si uu dhaqaale ku heli lahaa, waxaa dhacaysa naftiisa inuu lumiyo. waxbarashada waxa loo bartaa waxa ay tahay inaad naftaada hormarisid, aad naftaada ku anfacdid, kadibna aad ka muuqatid meesha aad joogtid. waxbarashada looma barto inaad meel walba ka muuqatid ama meel walba aad taagan tahay ama meel walba aad isleedahay lacag ka hel ama magac ka hel. waxbarashadu waa inay naftaada kor u qaadi kartaa. kor u qaadkana waxaa ka mid ah inaad hadafyo leedahay, hadafyadaasoo la taaban karo. lacagtu hadaf ma aha. ama haweeney saaxiibteeda ayaa guursanaysa, kadibna waxay arkaysaa qaabka guurkeeda uu ahaa, isla markii xiise ayaa qaadaya ay maseer, kadibna way guursanaysaa. xiisuhu markuu dhammaado, isla markii waxaa dhacaysa inay gurigeeda aysan ku qancin, waayo guriga waxa geeyay waxay ahayd hiblaayo ay ka maseertay ama xiise ay dareentay. lacagtu waxyaabo yariisii kuu goy kartaa mooye noloshaada farxad ma sii karto. xitaa haddii ay caafimaad noqoto, dad badan waxaa jira kansar ku dhaca ee lacagtu waxba u qaba weyday. dad badan oo xanuunada halista ah ay ku dhacaan baa jira oo lacag intay doonaan haysta laakiin aysan waxba u taraynin. tan wiilka markaa u galo, maxaa sababa inuu isla markii haweenaydiisa sanadka qabay ama isbuucyada qabay ama bilooyinka qabay inuu isla markii la guursado? waa wax maskaxdiisa laga dhaadhicinayo. sababtuna waxa ay tahay wax la leeyahay dhaqaal aad haysataa, qurux baa leedahay, muuqaal baa leedahay, hami baa leedahay, ma reerka basatid, laakiin kama fikirayo waxaan aad badinaysid in intee leeg ayaad qaadi kartaa culeyskaani. isla marka dabiciisa ayaa kor u qaadaya. dabiciisa markuu kor u qaado, waxaa dhexaysa meel cidla inuu ku soo dhaco, labada meelba inuu ka waayo sida uu naftiisa rabay. 25 markaa ka yartaa, si walba maskaxdaada wax ugu soo dhacaan iyo si walba fikirro ay kugu soo dhacaan, waxyaabahaasi waxay noqonayaan wax tirtirma. laakiin 25 maalinta ay kuu gasho ilaa 35, wax walba aad ku fikirtid, wax walba aad qabatid iyo meel walba aad taagnaatid, 10 sano 25 marka laga bilaabo ilaa 35 bay noloshaada dambe oo dhan ahaa doontaa. waayo markaasi waxaa tababaranaya neerfaha jirkaaga, murqahaaga, iyo weliba waxaa kordhaya maadooyinka jirkaaga lagu soo sii deynayo, ama mid cabsi sababaysa ha noqoto, mid farxad sababaysa ha noqoto, mid murugo sababaysa ha noqoto. 10 sano waxa aad xoogga saartid baa 35 maalinta aad cagta la gashid bay noloshaada kusii dambey doontaa. haddii aad 10 sano dhaqaale ka fikirtid, 35 maalinta aad madaxa la gashid, noloshaada dambe oo dhan waxaa ahaanaysa qof dhaqaalihiisa ka fikira. haddii aad caafimaad ka fikirtid 25 markii laga bilaabo ilaa 35, noloshaada inta dambe oo dhan waxaa ka fikiraysaa caafimaadkaaga. 25 maalinta aad gaartid, haddii aad caafimaad xumo, dhaqaale xumo, fikir xumo, akhlaaq xumo, maskax xumo, iyo weliba inaad isliidid, inaad qabyaalad ka sheekaysid aad ku bilowdid, 10 sano oo dhan maskaxdaada waxa ay xoogga saaraysaa in qabyaalad kaliya ay ka shaqayso. noloshaada inta u dambeysana wixii aad xoogga saartay la kasii shaqaynaysaa. 25 maanta haddaad jirtid, fursad baa haysataa. xitaa 34 haddaad jirtid oo 1 sano kuu dhiman tahay, wixii hore dhan way ku soo dhaafeen. waxyaabaha xoogga la saaro waxaa ka mid ah dhaqaalahaaga inaad ka fikirtid, waxaa ka mid ah caafimaadkaaga iyo iimaankaaga inaad kor u qaadid. saddexda haddaad xoogga saartid, nolol caafimaad leh ayaa helaysaa. marka inaad la fahantaa u malaynaya. asalaamu calaykum.